in ka badan 10 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Balugubadle ayaa shir tiraayada ku qabteen howlka dawladda hoose degmada Balugubadle ku tilmaamay in kalfadhigooga aan caadiga ahayn ee uu ogolaaday maayarka degmada Balugubadle kana dhanka ah maayarka degmada Balugubadle in uu hakadu ku yimid taasi oo ay u arkeen in loo hakinayo qof kaliya lagana doorbiray 10 hayeeshee waxa ay xildhibaanadani aad cabasho xoogan uga muujiyeen faragelin qaawan uu ku hayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaana carabka ku dhuftay inay ku biiri doonaan axsaabta kale ee qaranka kan waxaan ku fadhinaa anagoo gobolka ka tirsan degmada Balugubadle xildhibaanadii golaha deegaanka ee Balugubadle waxaan halkan miidiya ugu gudbinaynaa oo aanu leenahay waxa jirta mooshin aanu soo dhignay oo aanu maayarka xilka kaga qaadayno waxaanu noo mudeeyay 3 bisha labaad ayuu noo mudeeyay wuxuu qoray warqad mudeyna maada warqada mudeynta uu qoray maxaa ku raahdaa maayarku ee uu ku mudeynayo inuu 3 bisha shirka qabanayo shirkii aan caadiga ahayn ee aan shirkii caadiga ahayn laga qabanayay xilka qaadi laga qaadayay taasi iyadoo loo balansanin saako markuu waagu bariyay waxaan la kulnay barasaabku wuxuu warqad wasiirku soo qoray oo taara ayaa xalay lay keenay waanay kala horeeyeen labada warqadood mooshinka iyagu uu ka horeeyay warqadda haddaba waxaanu leenahay wasaaradda arrimaha guduhu iyo wasiirka arrimaha guduhu iyo cidii warqadda ka dambeysay shakhsi iyo golaha deegaanku way kala badan yihiin maayarka waxa golaha deegaanka fartooda ku doortay fartooda aanay kaga qaadi karaan annagu 10 xildhibaan oo maayar ku xigeenku ku jira baanu halkan ku fadhinaa kuna saxiixnay warqadda meedii warqadii saxiix warqadaas aanu 10 xildhibaan ku saxiixnay oo maayar ku xigeen ku jiro nagu hogaaminayo markay sidaa tahay waxaanu leenahay haddii shakhsi loo xidho oo wasiirka arrimaha guduhu intuu maayarka caasimadda Hargeysa yiraahdo hal layga joojiyo mooshin baa laygu qaadayaa warqad la qoro oo kolba maayarkii mooshin lagu soo qaaday intuu carruur wasiirka arrimaha gudaha u tago uu yiraahdo wasiir mooshin baa laygu qaadayaa iga jooji aan kulmiyaan ahay oo mucaarad baa meesha qabsanaya taa wax ka jira ma jiraan waxaanu leenahay wasaaradda arrimaha guduhu ha ka fiirsato 24 saacadood gudahoodna haddaanu golaha deegaanka degmada Balugubadle nahay jawaab cad hana soo siiso wixii intaa ka baxsan annagu waxaan bulshada hogaaminaa cod baan lagu soo doortay 10 xildhibaan miisaankii leeyihiin waa la garanayaa ha ka fiirsato dawladda kulmiye ayaanu leenahay annagu magacaygu oo Cumar Muuse Maxamed Bulbul ah kana tirsan golaha deegaanka degmada Balugubadle waxaan halkan miidiyaha u marinayaa shirkii maayarka degmada Balugubadle Cabdi Iimaan Jaamac oo noo mudeeyay kuna ballansanay 3 bisha sida xildhibaanka hore uu sheegay in aanu saaka u tagnay barasaabkana loo keenay warqad xalay toole lala soo guura galay shirkayaga iyo muddadayadana ay ka horeysay haddii ay ka horeysayna lagu joojinayo shirka amar ka soo baxay arrimaha gudaha waxa aanu leeyahay wasiirka arrimaha gudaha iyo xisbiga kulmiye haddii aan laga fiirsan arrinka shakhsiga loo garba duubayo in aanu ka ololayn doono saaka laga bilaabo ciddii xisbiyada mucaaradka aan u shaqayn doono annaga iyo bulshada iyo deegaanka aanu ka soo jeedno ee aanu hor kacayno qaanbiil kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Balugubadle arrintan maayarku noo mudeeyay sida ay sheegeen labada xildhibaan ee iga horeeyba arrinkan dambe ee ugu yimid ee wasaaradda arrimaha guduhu xalay tidhi waan ku joojiyay shirkii maayarka oo wadani baa meesha wadata waxaan halkan ka cadaynayaa anagu maayarkaan wadanay waa maayar kulmiye ah
labada shakhsi ee xisbiga kulmiye ka soo baxay marka hore waxay ahaayeen aniga iyo maayarka imika meesha haysta maayarkan aanu imika wadanaa oo sacadi waxa uu ahaa maay ninkii ugu horeeyay golaha deegaanka ee ku soo biira xisbiga kulmiye waxaanu ka mid ahaa ergadii shirweynihii xisbiga kulmiye ku dooratay Muuse Biixi iyo hoggaanka xisbiga waxaan halkan ka cadeynayaa in laba xildhibaan oo wadani ka soo baxay oo quri ay nagu jiraan inta kalena ay wada kulmiyeeyeen sababta markaa ay dawladdu uga door biday shakhsi 10 kii xildhibaan waa mid ay 24 saacadood gudahood haddii ay go'aanka kaga noqon weydana aniga oo kulmiye ka soo baxay iyo inta kulmiye ku biirtaba waxaanu ka shaqayn doonaa halka noodana horta hadalkii waa la wada yiri aniga haray looma hadlo laakiin midun baan ku kordhinaya anigu inta xildhibaanadu yiraahdeen waxa weeyaan anigu ma nihin shaqaale u shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha waxaan nahay xildhibaano la soo doortay oo cod shacbi ku yimid maayarka annaga dooranay annagaana ridaynaa codkii aanu ku dooranay umaanu maanta ku ridaynaa kadib markaanu salownay waxqabadkiisii waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha gudaha 10 xildhibaan baan codkaygii shacabkayga waan wadanaa qoraalka uu xalay keenay haddii uu ka noqon waayo oo 24 saacadood gudahood kaga noqon waayo wixii ku dhaca xisbiga kulmiye taageeradiisa iyo dawladda isaga ka mas'uula codkayga iyo shacabkaygana waxaan la tagi doonaa xisbiyada qaranka kiyaanu doono anigoo xildhibaan golaha deegaanka Foodimaan waxaan halkan shirkan jiraydaan u qabanay shirkan caadiga ahayn ee aan u qabanay maayarka ka dhanka ahaa maayarka ee uu noo mudeeyay 3 cisho ee barasaabku ogaa ee wasaaraddu ay ogtay waxa la keenay taar ama warqad barasaabkii loo keenay xalay oo shakhsi loo soo qaaday shakhsi annaguna 10 xildhibaan oo maayarku xigeenku hor kacayo ayaanu nahay marka ay sidaa tahay hawsha ridistiisa iyo deyntiisaba annagaa cod ku geynay annagaana cod kaga qaadayna wasaaradda arrimaha guduhu faragelinta ay nagu soo faragelisay waa loo aayi doonaa oo xisbiga kulmiye ayaa u aayi doonaa 10 xildhibaan oo maayar ku-xigeen ku jiro iyo hal shakhsi iyadaa kala dooran 24 saacadood gudahood haddii lagaga soo jawaabi waayana waxaan u ololayn doonaa xisbiyada qaranka kii aan doonno magacaygu waa Farxaan Maxamed Good waxaan ka tirsanahay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Beligubadle waxa keenay baan ka warbixinayaa shirkan jiraayid ee aan ku qabanayno hoolka dawladda hoose ee degmada Beligubadle ka socda saaka waxa dhacday in ay mooshin jiray mooshinkaas oo ka dhan ahaa maayarka degmada lagu ridayay runtii waxaan markaa laan isku helay waxay ahaayeen 10 xildhibaan 9 xildhibaan iyo maayar ku-xigeenkii oo nagu hogaaminaya baan ahayn wuxuu qaatay markii warqadii loo dhiibay wuxuu qaatay uu diiday barasaabka markii gaadhayna wuu soo noqdo wuu qaatay idhi warqada wuu qaatay maayarku inuu qabanayo shirka wuxuu saxeexay inuu 3 bisha qabto shirka inuu qabto ayuu saxeexay wata warqadii waxa xigtay oo kale 10 xildhibaan waa kuwan iyo maayar ku-xigeen 9 xildhibaan iyo maayar ku-xigeenkii 10 ka xubnood waa kuwan marka ay caynka xaaladdu tahay saaka waa shalay marka arrinkaas 2 bisha 1 bisha miyana waxa soo baxday saaka 2 bisha in barasaabku neeri wareegtaay timid soo qaaday maayarkii wareegtadaas oo ah wasiirka arrimaha gudaha ka soo baxday inaan la bedeli karin waxaan leenahay ma nihin shaqaale annagu xasaanad baanu leenahay xildhibaanaanu nahay wakiil baanu nahay ummad baanu ka wakiilnahay xukuumadda kulmiye Soomaaliland ama kulmiye aan xisbiga kulmiye cidda ay ku xisaabtamayso dadka uga wakiilka baanu nahay
ciddina soo dooratay baanu ka wakiilnay waxaan halkan ka caddaynaynaa oon aad iyo aad runtii wax looga yakyaqsooda ah wasiirku hal shakhsi marka uu u soo samaynayo warqadda annagu wareegto hore nooguma iman umay jirin waxaan u aragnaa in loo soo sameeyey maayarka degmada oo ay ujeeddo ahayd baan u aragnaa laga bilaabo saacaddan waxaan u arkaynaa warqaddaas inay ujeeddo ahayd maadaama ay sidaa tahay waxaan jecel lahay oo aan anigu halka kan codkayga midiyaha uga marinayaa xukuumadda uga gudbinayaa fariin in ay hal shakhsi haddii ay 24 saacadood gudahood kaga noqon waayaan jawaabta ay sheegeen halka shakhsi taageerada ay ku siinayaan waxaanu ballan qaadaynaa inteeda halkaa fadhida waxaanu ballan qaadaynaa annaka iyo dadka aanu ka wakiilka nahay in aanu xisbiyada qaranka ee kale ka shaqaysiin doono taageerayaashayada iyo awoodayada iyo masayrkayga siyaasadeedkan maxaan ku raahday kula biirayna ka fiirsan doono ka bacdina ka shaqaysiin doono halkaana ay xukuumaddu iyadu kaga mas'uul noqon doonto wixii kaga yimaada kana tirsan golaha deegaanka degmada Beligubadle ahna maayarka xigeenkii hore Beligubadle ahna ninkii xilkii uu hayay lagaga qaaday halkan taasoo ay golaha deegaanku si xaraga leh karaamo leh sharaf leh xilkana ay kaga qaadeen uguna wareejiyay maantana waxa weeye maayarka waxa weeye falaadhu maalin ban bay haysataa waxa weeye maayarku waa annaga dooranay far baa lagu geeyay markii horena ciddii geysay golaha deegaanka ahay maantana golihii deegaanka ayuun baa damcayn xilka ka qaadan waxaan leeyahay faragelinta qaawan ee nagaga timid wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca ka raran xalayna lala soo guuro galay waxaana ka horreysay qoraalkii uu noo qoray maayarku oo taasa oo uu ku muddeeyey 3 cisho inuu ku qabanayo ka bilaabanto 1dii bisha waxaanu taaganahay warqadda la soo qorayo warqadda aanu haysano taayadaa ka horreysay waxaanan sheegaynaa haddii go'aankaa xukuumaddu ay ku soo jawaabtay ay ka noqon weydo annagoo 9 xildhibaan iyo maayarka xigeenkoodii 10 waxaanu go'aansan doonaa hadday si degdega uga soo jawaabi weydo qoraaladaa 10kiina ay ku saxan yihiin hadday si degdega uga soo jawaabi weydo 24 saacadood deg kaga soo jawaabi weydo waxaanu xisbiga aanu doonno ee aanu hadafkayga siyaasadeed la qaadano ayaanu annagoo 10 xildhibaana annagoo 9 xildhibaan iyo maayarka xigeenkii waxaanu ku biiri doonaa xisbiga aanu dan moodno waxaanan leeyahay oo kaloon fariin u diraya bari saabka gobolka awoodda uu leeyahay xukuumaddu faragelintaa ka dayso waxaanu leenahay bari saabku isagaa ka madaxweynaha gobolka isagaa matala waxa uu dhammayn karo weerarka lagu soo duulayo ha laga daayo haddii laga dayn waayo dee waddanka fooda ka abuurmaysa saacaddaa laga bilaabo 24 saacadood lagu soo jawaabo cabdiraxmaan axmed aadan magacaygu yahay xildhibaanada golaha deegaanka marka hore waxaan ballaynayaa dadweynihiina soo doortay ee gobolka hawd marka xigta waxaan salaamayaa bari saabka gobolka hawd oo si fiican loo shaqeeyey faragelintay ku hayso arrimaha guduhna waraaq waxaa soo dirtay inay si degdega ay uga tanaasusho ayaan rabnaa haddii kale waxaanu xusba la xusma doon ku biir karnaa assalaamu calaykum.